Tiknoolajiyadda maanta waa qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah. Isticmaalkeeda iyo la falgalkeedu waxa ay muhiim u tahay qof, ganacsi ama hay'ad walba oo casrigan jirta. Iyadoo taa laga duulayo waxaa lagama maarmaan noqotay in shirkadda Tabarak ICT Solution adeegyadeeda ay gaarsiiso gobollada dalka si ay u buuxiso baahida bulshada Soomaaliyeed ee dhinaca tiknoolajiyadda. Bismillahirrahmanirrahiim. Aniga ah Maxamed Sheekh, maamulaha xafiiska Tabarak ee Dhuusamareeb Gurceel. Waxaan bulshada deegaanka ugu bishaareynaa inaan soo gaarsiinay deegaanka adeegyadii shirkadda Tabarak ICT. Waxaan ku dadaalaynaa inaan deegaanka hirgelino adeegyo tiknoolajiyadeed oo tayo sare leh. Shirkadda Tabarak ICT Solution waxa ay ku faanaysaa inay gaarsiisay adeegyo tiknoolajiyadeed oo tayo sare leh macaamiisheeda meel walba oo ay joogaan. Tabarak ICT waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka caawinaysaa inay la socdaan casriga tiknoolajiyadda iyadoo bixinaysa adeegyo degdeg ah, sahlan oo la isku halayn karo. Adeegyada shirkaddu ay bixiso waxaa ka mid ah software solution, mobile app development, web design and development, network service iyo IT consultant. Dhammaan adeegyadan waxay muhiim u yihiin jiritaanka horumarka iyo shaqada ganacsiga, hay'adaha waxbarashada iyo xarumaha dawladda. runtii wax badan bay noo fududeeyay adeegan saan u adeegsanay, wax badan baa shaqadu noo fududaatay. waxyaalaha aan ka helno waxaa ka mid ah xagga biilinka oo kale. waxa weeye marka lambarka guriga la geliyo saacadana la akhriyo inta kale asaga muxuu ahaa isdalacaya. marka boonooyinkii iyo waxyaalihii la adeegsan jiray kharash ahaan iyo qalad ahaanba runtii waa asaga ka muhiimsan. sidoo kale fariimaha dhacaya oo qofkii macaamiishahay u dhacaya lacagtii u sheegaya waa faa'iido kale. qofku markay lacagta bixiso system automatic ay u jarhayaa, qofkiina wuxuu siinayaa muxuu ahaa jawaabtii uu siinayaa ama wixii la dhihi jiray fariimihii uu helayaa, lacagtii asagaa jaraya. marka runtii waa system shaqadii qabashadeedii hawshii waa fududeeyey, shaqaalihii waa fududeeyey, waxyaalihii qaladkii qalinka oo dhici jiray wax badan baa fududaaday. runtii aad baan muxuu ugu qanacsanahay. Tabarak ICT oo fursad u siinaysa bulshada deegaanada kala duwan ee dalka inay helaan adeegyo casri ah iyo caawinaad waqti kasta ah. waxa ay xarumo ka furatay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. waxaana Tabarak ICT ay ku faraxsan tahay inay si toos ah u bixinayso ugana jawaabaysa baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee dhinaca tiknoolajiyadda. waxayna shirkaddu ku fidaysaa muddooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo geeska Afrika si loo hubiyo in adeegyada ICT ee tayada sare leh ay gaaraan gobollada dalka oo dhan. la xiriir Tabarak ICT maanta oo la jaanqaad casriga tiknoolajiyadda iyo adeegyada ku sahlaya taabagelinta yoolkaaga.